بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan isla eegeynaa caawa jabtarka lixaad ee strategic managementiga strategy evaluation qiimeynta lagu sameeyo istaraatiijiyadda. Hore waa tii jabtaradii shanta ahaa ee hore aan soo eegnay aan ku aragnay istaraatiijiyadda sida loo sameeyo, sida istaraatiijiyadda loo soo dhiraandhiriyo, meelaha istaraatiijiyadda laga eego iyo istaraatiijiyadda hirgelinteeda. caawa waxaan isla eegeynaa istaraatiijiyadda markii la hirgeliyo qiimeynta lagu sameeyo waa sidee. waxaan rabnaa inaan qiimeyno istaraatiijiyadda. qiimeyntaas waxay noo suurtagelinaysaa inaan ogaano heerka aan marayno. strategic evaluationka waxyaalaha ujeedka loo sameynayo strategic evaluationka waxay tahay istaraatiijiyadii aan keenay ma tahay mid macquul ku ah kambaniga. intaas la rabo in la ogaado. hadday sixitaan noqoto marka feedback ayaa la sameynayo waa la saxayaa. waxaa la sameeyaa halbeeg baa la sameeyaa kaasoo lagu eegayo istaraatiijiyadii aan soo saarnay ee kambaniga ha qaadata la yiri sida ay tahay. The need for evaluation of strategies being adopted is properly set out. markii istaraatiijiyadda la hagaajiyoba la hirgeliyoba waxaa la sameeyaa strategic evaluation and it's necessary especially for corrective adjustment. waxayna muhiim u tahay markii la rabo in kambaniga uu hirgeliyo barnaamij ah toosin, yani istaraatiijiyad toosin barnaamij ah. waxaa la rabaa istaraatiijiyad aan haysana haddayan macquul ahayn istaraatiijiyad ku xigtaan aadina. istaraatiijiyad ma jirto istaraatiijiyad dhammaystiran oo markiiba okay ku noqonayso kambaniga. sida awgeed a good strategy may also need waxaa laga yaabaa istaraatiijiyad aada u wanaagsanna qaadatay waxay iyadu u baahan tahay improvement since no condition or situation is permanent. maxaa yeelay ma jirto dabeecad iyo shardiyo iyo maxaan ku yidhaha xaalad iyo deegaan markasta permanent ah oo joogto aan isbeddel lahayn ma jiro. adduunkan isbeddel buu leeyahay. isbeddel ka yimaada waxaa loo baahan istaraatiijiyadaada inaa improvement ku sameyso oo wax ka bedesho. marka evaluationka waa qaab aad u adeegsanaysid inaad ogaatid istaraatiijiyadii fit ma ku tahay kambanigaaga mise kuma aha. business strategy markii evaluation qiimeyn lagu sameynayo waxaa dib u eegis lagu sameeyaa reviewing waa dib u eegis. waxaa dib u eegis lagu sameeyaa internal and external factorieska, shirkadda banaankeeda iyo shirkadda gudaheeda isbedelada ka dhacay maxaa isbedelay. measuring performance waxaa la eegaa yani shaqadii aan qabanay sidee bay ahayd, yani wixii aan yani howlqabadkeena waa sidee, annaga howlqabadkeena sidee weeye. waxaan sidoo kale eegnaa taking corrective action. waxaan qaadaynaa marka action sax ah taasoo dib u sax ku sameynaya istaraatiijiyadda aan hore u qaadanay. mar walba evaluationka waxaa maskaxda ku haysaa evaluationka markuu imaanayo already waxaa la sameeyey istaraatiijiyad hirgasha. istaraatiijiyadda hirgashay baa la hagaajinaya. strategic evaluation markii la sameynayo dariiq waa la maraa. approachka ama dariiqyada la maro si loo sameeyo strategic evaluationka waxaa ka mid ah waxaa la eegaa appraisal. qiimeyn baa waxaa lagu sameeyaa the health of the firm's portfolio waxaa la yiraahdaa productiga ahays waa maxay. tusaalehaan haddaa iibiso, haddaad sameyso buskud iyo maxaan ku yiraahdaa isheeg iyo waxaa sameysaa xalwad, waxaa kaloo sameysaa maxaan ku yiraahdaa sharaab, waxaa sameysaa dhammaan waxay ku noqonaysaa portfolio, waxay ku noqonaysaa adeegyada aa haysid. waxaa la eegaya marka jadwalka adeegyada aa hayso. rootiga waxa u dhow dhan waxaan gelinaynaa meel, sharaabka waxa u dhow dhan waxaan gelinaynaa meel, sharaabka iyo biyaha kale isku meel baa gelinaynaa, hal portfolio ka dhiganaa. maxaan ku yiraahdaa isheeg waxaan hal portfolio ka dhiganaa. guryaha aad dhisto kale hal portfolio aan ka dhiganaa. waxaan ka dhigaynaa tusaalaha haddaad toorno leedahay biraha sameysa hal portfolio aan ka dhigaynaa iyo maxaan ku yiraahdaa isheeg haddaa garash leedahay isku mid baan ka dhigaynaa. portfolioyaasha kuu jooga keeba uga caafimaad badan baa eegaysaa. caafimaad qabkooda, faya qabkooda waxaa dhehaysaa tusaalahaan guri dhisitaanka caafimaad qabkiisa aad buu u wanaagsan yahay. waxaa dhehaysaa maxaan ku yiraahdaa isheeg
portfolioha maxaan ku irahdaa ii sheeg rootiga iyo buskutka iyo keega oo kaleeto xoogaa weakness baa ku jirta adigu waxaa lagaa rabaa inaad sheegtid fayaqabka productska ahayso relative long run alternatives waxaad eegaysaa yani attractivenesska businesskaaga markaa eegto long run attractivenesska maxay tahay haddii uu sii jiro 5 sano 6 sano 8 sano maxaa soo jiidasho leh tusaalahan rootiga ma dhadhankiisa awgeed baan looga tagi karin yani rootigaaga hadduu dhadhankiisa macaan yahay 6 sano 8 sano 10 sannadood baa laga yaabaa in yani isaga uu attractiveness soo jiidanayo isaga uu attractive yahay macaanka dhadhankaas inuu attractive yahay waxaan eegaynaa marka productigaaga wax yarka ah oo ku jira oo dadka soo jiidashada la waqtiga badan hayn kara waa maxay choosing one and how to upgrade waxaan eegaynaa sidee u dooranaa doorasho waa inaad dooratid qaabkii iyo goortii lagu sameyn lahaa dib u upgrade gareyn yani dib u kicin lagu sameyn lahaa portfolioha companygaaga businesskiisa waa mahadsantihiin jabtarkaas waa jabtarkii 6aad ahna jabtarkii u dambeeyay strategic managementiga waxaan idinku dhiirigelinayaa haddaad su-aalo qabtaan oo kaleeto fadlan na soo weydiiya email ahaan nagu soo weydiiya waxaan insha allah aan rajeynayaa inaad fahanteen asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu